Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena YouTube-ka ee ka habari qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah sarkaal hub gaadiidii ciidan kala goostay kooxda Ahlusunna wal Jamaaca oo gaaray magaalada Dhuusamareeb iyo xiisad arintan ka dhalatay oo ka taagan duleedka magaaladaasi warar ayaan idinkaga hayaa madaxweynaha Puntland Siciid Deni iyo agaasimihii BSF Maxamuud Diyaano oo markii ugu horeysay ku kulmay magaalada Boosaaso haddaba muxuu ku soo dhamaaday kulankii Siciid Deni iyo agaasimihii BSF Maxamuud Diyaano xogo ayaan idinkaga hayaa wararkeena kalena waxa kamid ah xogo culus oo laga helay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo heshiiskii shidaalka ee la saxiixay wax ka ogaa halkee ayuu ku dambeeyay khilaafka labadan mas'uul warar ayaan idinkaga hayaa sidoo kale qolalka xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxa lagu dhajiyay sawirka madaxweyne Farmaajo oo markii hore laga fujiyay sidoo kale waxaan idin hayaa ra'iisul wasaare Roble oo amar dul dhigay saraakiisha ciidanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM wararkaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa waa Arbaco 2 Maarso sanadka 2022 u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi waa hagaag marka la kulanti wanaagsan aan ku bilaabo warkeena kulankii u horeeyay ee dhexmaray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo agaasimihii xilka laga qaaday ee BSF Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa isfaham la'aan ku dhamaaday sida ay xaqiijiyeen dad lagu kalsoon yahay madaxweynaha iyo agaasimaha oo ay weheliyeen isimo uu hogaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse waxay kulan albaabada u xiran yihiin ku yeesheen xarunta madaxtooyada Boosaaso madaxweyne Siciid Deni ayaa ka dalbaday Maxamuud Diyaano inuu aqbalo dikreetadii looga qaaday xilka agaasimaha BSF isla markaana xilka wareejiyo kadibna loo fulin doono wixii uu dawladda ka rabo balse agaasime Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa diidmo ka muujiyay dalabka madaxweynaha Puntland wuxuuna codsaday in dawladdu fuliso go'aankii u dambeeyay ee isimada kadibna la xaliyo wixii khilaaf ah ee jira go'aankii u dambeeyay ee isimada ayaa dhigayay in Maxamuud Cismaan Diyaano loo daayo agaasimaha BSF-ta kadibna la heshiisiyo isaga iyo madaxweyne Siciid Deni kulanka oo natiijo la'aan ku soo dhamaaday ayaa lagu balamay in mar kale maanta la isku laabto sida ay xaqiijiyeen dad ka tirsan labada dhinac kulankii kan ka horeeyay ee madaxweynaha iyo isimadu ka yeesheen xalinta khilaafkii BSF ayaa sidan oo kale isfaham waa ugu dhamaaday wixii ku soo kordha xogta kulankan wararkan soo socda ayaad ku daawan doontaan waayahay sarkaal firfircoon oo ka tirsan ciidanka Ahlusunna ee ku sugan deegaanka Bohol ee Galgaduud ayaa iska dhiibay magaalada Dhuusamareeb isagoo ka goostay kooxda Ahlusunna sarkaalkaasi oo magaciisa lagu sheegay Sayid Cali Cabdi Xaashi ayaa hub ciidan iyo hal gaari oo nooca raaxada ah kala goostay Ahlusunna wuxuu isku dhiibay ciidanka booliiska Soomaaliya ee Dhuusamareeb ka howlgala sidoo kale waxaana loo xaqiijiyay in horay uu uga tirsanaa booliiska Soomaaliya Sayid Cali ayaa kamid ahaa saraakiishii wax ka aas-aastay ciidanka Ahlusunna ee ku sugan deegaanka Bohol kuwaas oo Galmudug iyo ciidamo ka socday dawladda dhexe dagaal qaraar kula galay degmada Guraceel ninkan oo ku jira saraakiisha darajada hoose ayaa la sheegay in saacadaha soo socda lala kulansiinayo madaxda sare ee Galmudug si loogu dhiirigeliyo go'aanka uu qaatay horay kooxda Ahlusunna waxa uga goostay saraakiil iyo ciidan dhiirigelin ka helay madaxda Galmudug gaar ahaan madaxweyne Qoorqoor oo dhab uu ka yahay dagaalka uu kula jiro kooxda Ahlusunna ayaa abaabul ciidan oo aan kala joogsi lahayn ka wada deegaanada dhaca waqooyi galbeed ee magaalada Dhuusamareeb oo caasimad u ah Galmudug ilaa haddana ma jirto cid si dhab ah u og qorshaha ama hadafka rasmiga ah ee kooxdaasi wararka National TV ayaa daawanaysaan fadlan daawada subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho sidoo kale like saar muuqaalka si ay asxaab badan u daawadaan dad baa waxay moodeen in khilaaf culus uu ka dhex jiro ama uu u dhaxeeyo madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble asa ahaatee dadka qaar waxay aaminsan yihiin in dadka lagu marin habaabinayo khilaafkan labada mas'uul sida la og yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa si cad u sheegay bilo ka hor in madaxweyne Farmaajo uu la mid yahay murashaxiinta madaxtinimada raadinaysa isagoo adeegsaday ereyga ah madaxweynihii hore intaasi markii uu dhahay kuma uusan ekaanine balse waxa uu sawirka madaxweynaha qaranka oo astaan u ah dalka ka fujiyay dhammaan xafiisyada uu ku shaqeeyo dhismihiisa
sawirkan hoose waa ra'iisul wasaare Roble oo axadii isbuucan la kulmay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Tina Intelman isagoo qaybta dambe aan lagu dhajin sawirka madaxweyne Farmaajo. sawirkan kale ee hoos idinkaga muuqda waa xogayaha fulinta IGAD Dr. Workane Gebeyehu oo markaasi dhamaadka sanadkii hore bishii December ra'iisul wasaare Roble la kulmay waana meeshii isbuucan lagu qaabilay Danjire Intelman. sawirka Farmaajo ayaana ka muuqda markan wafdiga IGAD lala kulmayay. halkan waa hoolka inta badan ay ku shiraan golaha wasiirada Soomaaliya, sidoo kale waa meesha ay ku kulmaan ra'iisul wasaaraha iyo dhinacyada ka baxsan xukuumadda sida saraakiisha ciidanka. sawirkan idin muuqda waa toddobaadkan mid la qaaday, waxaana sawirka ka hooseeya uu yahay midkii shalay la qaaday. xiliyada ay xukuumaddu shiraan halkan lama muujiyo sawirada goobta sawirka lagu dhajiyo. waxaa la isweydiinaya ayaa ah ma ra'iisul wasaare Roble ayaa marka uu rabo sawirka sura gadaashiisa mise qolalka qaar ayuu ku diyaariyay siba meesha uu kula kulmo dadka ajaanibta ah. waxaa qasab ah in sawirada lagu dhex arko sawirka madaxweynaha qaranka. dadka qaar ayaa rumaysan in Roble iyo Farmaajo ay hoos ka heshiiyeen oo aan saxaafadda lala wadaagin, balse dadka siyaasadda oo daroosa ayaa u arka midani mid markaasi labada mas'uul ay danahooda ka dhex arkayaan wada joogista xukunka inta doorashada ay ka dhamaanayso. waayahay intaan ka bixin wararka Farmaajo iyo Roble la xiriira, madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa ay labaduba ogaayeen sida la sheegayo isla markaana taageero weyn oo joogto ah siinayeen heshiiska batroolka ee ay wada saxiixdeen mas'uuliyiinta shirkadda Coastal Exploration iyo wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed. waxaana sidaasi sheegay ilo ka tirsan shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka. ilo wareejyada laga helay xogta oo waraysi gaar ah siiyay warbaahinta ayaa intaasi ku daray in ay la yaabeen isbedel ka dhacay iyo hadallada ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo ka soo kala baxay. si ka duwan warkii ra'iisul wasaare Roble ahaa in heshiiska aanu buuxin shuruudaha, waxa ay dhinacyada xogta bixiyay oo ka gaabsaday in magaceeda la xuso ay sheegeen in heshiiska uu u dhameystirnaa dhammaan habraacyadii sharciga ayna soo bandhigi doonaan waqtigeeda. shirkadda Coastal Exploration waxa ay mas'uuliyiintooda sheegayaan in lama filaan ku noqotay jahwareerna u arkaan hadallada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo labadaba ku qanacsanaa heshiiska iyo habraacyadiisa. inkastoo qoraal ka soo baxay xafiiska Roble lagu sheegay inuu sharci daro yahay heshiiska uu saxiixay wasiirka batroolka, halka Farmaajona uu sheegayba inuu heshiiska ka hor imaanayo dikreeto uu heshiisyada ku joojiyay xilliga doorashada soona saaray 7 bishii 8 sanadkii 2021. haddana waxaa muuqata in ay markaa ku lug lahaayeen heshiiskan iyadoo wasiir Cabdirashiid uu xusayba inuu taageero ka haystay madaxweyne Farmaajo. Coastal Exploration dhankeeda waxa ay sheegaysaa in warqadahooda ay sharci yihiin, madaxda labaduba ay ogaayeen, iyagoo markaasi sheegay inay ka warsugayaan baarista xirlaaliyaha guud Soomaaliya Suleymaan Maxamuud uu heshiiskani ku sameynayo sida loo saxiixay. wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar oo arrintan heshiiska ka hadlay ayaa sheegay in sababta Farmaajo iyo Roble isaga fogeeyeen heshiiska ay tahay inuu ka hor imaanayo nidaamka deyn cafinta, laakiin waxa uu Mukhtaar ku dooday in talaabadan ay dalkeena ka dhigayso dalaal aan markaa lagu kalsoonaan karin, keeni kartana in shirkadihii maalgashan lahaa ay ka kalsooni baxaan, isagoo inta raaciyay in shirkadda Coastal Exploration ay hadda u furan tahay inay laba jid keliya qaado oo ah kow inay sugaan xukuumadda soo socota ama in ay warqadaha iyo saxiixa ula dacwo tagaan maxkamadda caalami ah. guddiga maamulka maaliyadda oo ka kooban mas'uuliyiin Soomaali ah iyo IMF, bangiga adduunka iyo deeq-bixiyaasha kale ayaa warbixintooda 2021 uga digay in la galo heshiis shidaal ka hor inta aan la dhameystirin qaab dhismeedka sharci ee loo baahan yahay. gaar ahaan dowladda federaalka waxay sheegtay in abaalmarinta BSA iyadu ay timaado kadib marka la ansixiyo hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga warshadaha, kaasi oo xukuma shuruudaha maaliyadeed ee BSA iyo nidaamka canshuuraha ee lagu dabaqi karo. sharciga ayaa horyaala
golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. gabagabada wararkeena ayaan soo gaarnay. ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan xasaasi ah la yeeshay taliyaasha hay-adaha ammaanka dalka iyo ciidamada AMISOM kaasi oo looga hadlay ammaanka guud ee dalka. kulanka ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray adkeynta amniga guud ee dalka, gaar ahaan midka caasimadda Muqdisho oo toddobaadyadii dambe faraha ka sii baxayay. ra'iisul wasaare Rooble ayaa faray hay-adaha amniga inay xooga saaraan dardargelinta howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee guud ahaan gobolada dalka. sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaaruhu ku adkeeyay hay-adaha ammaanka dalka iyo ciidamada AMISOM in si gaar ah loo adkeeyo amniga caasimadda oo lagu qabanayo doorashooyinka guddoonada labada aqal ee baarlamaanka iyo midda madaxweynaha jamhuuriyadda. ra'iisul wasaaraha ayaa sidan oo kale 16 Febraayo isugu yeeray hay-adaha amniga dalka kadib falal argagixiso oo xilligaasi al-shabaab ay ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. kulamadan ayaa ku soo aadaya xilli ay dalka ka sii socoto doorashada golaha shacabka oo dhawaan muddo kordhin ay u sameeyeen guddiga wadatashiga qaranka kaasi oo ku eg 15 Maarso ee sanadkan. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteena YouTube-ka ka habari inta ku kulmeen wararkeena soo socda. nabadgelyo.